كورن ماتنكاga caasimadda Soomaaliya Muqdisho marka hore wallahi Muqdisho waxaan ka maqnay 23 sanadood marka yani ma tilmaami karo ama shay kari yani dareenkayga laakiin wala dareem kartaa umalayna yani inay farxad iyo maxaa la dhahaa inay farxad weyn tahay yani way intii aad dalka ka maqnayd waxa joogtay dalka Yemen aan filaya bal nolosha Yemen iga sheekay marka hore والله أنا قرر يمن أسكن أخذ مركا سدح إلى 20 سنة أنا جو يمن جوجي مركا هذا الكوضة دقن كوضة وحياة بدن أن لقب صدي حاجة كسبرت محل لها فنك حاجة كبيرة حاجة كسوع عاشي مركا يعني نلاش يمن يعني أسكن على حد أسكن على حد حتى لو قدي وأسوير بدش فيليا لو قدي وأسوير بدش سميع حواء وأتكاتي ويا هسه وجوه رئيس هاي إن نلاقي قيب قادته وبرنامج كعيد أتكون دافريس هاي نغنيسها وهس عن أذيك يا أمد الصومالية أي قانين وهست اللمانتا أيانتا لكن وحيرا كبدلي مركا أفك الصومالي أفك عربي أسلح جلي ميوزك أنا حاجة من سوق سبنيسية مركا رجيسي وعن إن شاء الله heesta si ayaan daafur kaga dhiganaynaa horeysiga waa uu noo soconaya kalma kale oo suuganeedna waa uu inoo hayaa laakiin ku soo dhawaada heesta allamaanta ayaanta iyo ciid wanaagsan أرضي جوكتا إسكولكا أضيالت لنايا أرضي جوكتا إسكولكا أضيالت لنايا إلهي النسي إساقاكو أبالي عالنكينا افتيمي حدكتاكو أستيسن عالنكينا افتيمي حدكتاكو أستيسن إلهي النسي إساقاكو أبالي
تقبلي دعائي واسعدنا بعيد جاء بالبركات. ahaatay maanta axsan ya calig codka markaasi saaxiibkay cabdirashiid halkaa ma soo dhigi karo ama markaa ma soo yara dhaweyn karo. cabdirashiid aad bay heestaasi u yara macaaneed, waxaadna moodaa heesihii kale ee isla heestan la mid ahayd ee faniintii qaadi jiray inay waxyar markaasi ka yara macaan tahay. aad baad umaasan tahay. bal ciidan marka aad fiiriso oo aad Soomaaliya ku ciidayso 23 sano in ka badan, maxaa kuu muuqanayo dadka Soomaaliyeed ciidaha sida looga ciido Soomaaliya oo hadda aad timid iyo farqiga u dhexeeya dalka Yemen؟ والله هذا رنت كوش يا أنا يمن عيدها معيدنا عيد قولي جلس كجوجا محل أضير مجوجو هورير مجوجتو فملك أنت بدنا مقيم فملك بدنا الصومالي جوجان مركا يعني عيد مجر تعمله يا مرك بل هاد أضد كاجي يقول كاجي أجوجتو عيدنا أتكسر بيجنتي وحيرنا أجوجتو درين انت لك باكو موقناي والله محل الله فرحديد waa aadi weyntahay marka tana igu horeyso anigo maxal laha adeeraday la joogo habar yar la joogo marka yani farxadeed aadi weyntahay way aad baad maastay fanka inta badan ama heesaha inta badan aad qaado waxaad ku yara dartaa heesaha ama erayaa ku jiraan luqadda carabiga ahi carabiga aad baad isugu fiicantahay dabcan carabiga aad isugu fiicannahay laakiin أرنتن هدف أما محلها هدفها كجرة أنا وحنا هاي أمة عرب أو صومال مسلم أنا عرب مركا يعني إن لحوجي لغة عربية ومهم ها مركا أنا فرصة يتمد إن لغة عربية سفي عن أبرتي مركا يعني كالنتن أنا قيب وين كقاتواي كالنت اللغة العربية وياي كعبدالرشيد هل مركا aad Soomaaliga ku heesayso iyo qaybta Carabiga ahay yaa kula macaan badan eraygan markaad Soomaaliso su'aashaas waxaan ka cabsanaynay aniga af Carabiga af Soomaaliga hadii isku fiirisid af Carabiga xogaa kula macaan ha marka 23 sano inagu min joogi oo maxaa la Soomaalida xagga Yemen oo ku yirihiin gaar ahaan Sanca yani marka luqada Carabiga ee sahlan ayaa kula macaan bad marka la qaadayo wayahay anagu kaga faa'iideysanayna isla fursadan ciida ku saabsan dadkuna ay jecel yihiin sida hore kugu sheegay suugaanta inta badan aad sameeyso ama suugaanta halkan laga muujinayo maxaad noo soo yar qaban lahayd markaan hees cusub jirta magaceed oo yahay maxal dhahaa Soomaaliya qarannimo Soomaaliya qarannimo ma qabiil ba واو waxaa kaga hadlaysaa dabcan filaya in qabiilku aad u liito ama dhibaato u leeyahay qabiilka iyo dhibaatada hadda jirta erayada ku jira marka maxaa kamid ahay Soomaaliya qarannimo ma qabiil ba qarniya bar qodhay iska jira ma qurux ba qolo u diriirki qaar ba qurbaha dagayo qaramada midoobay qod warsaday qaxooti noqday yaray kala cajiibay ya iska markaysaasi miraha waxa ay qoray abwaan zaki wal diirshe laxankana asiga sameeyay codka waa codkaygi musicana waa wiil saaxiibkayga oo Yemeni ah ay sameeyay farsamada codkana aniga ku sameeyay Yemen way inagana heestii oo dhameystiran baan halkan dadweynaha uga ciyaarayna ku soo dhawaada heestaasi Soomaaliya qarannimo ma qabiil ba iyo waliba codkii halaasiga ah saaxiibkii Cabdirashiid waa fanaankeena Cabdirashiid oo halkan la fadhiya daawasho wanaagsan Soomaaliya qarannimo ma qabiil ba qarniya bar qodhay iska jara ma qurux ba Soomaaliya qarannimo ma qabiil ba qarniya bar qodhay iska jara ma qurux ba qolo u dirirki qarb
qarba qurbaha degayo qaramada midoobay quud warsado qaxooti noqday qola qola u dirirkii qarba qurbaha degayo qaramada midoobay quud warsado qaxooti noqday wixii qaxariyo dhibaato dadkeeni qarribay dadkeeni kala qubay alloo naga qabo adaa qadire 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 qarannimo ma kharash baa qari iska dhiga nabad qaata ma qalad baa Somalay qarannimo ma kharash baa qari iska dhiga nabad qaata ma qalad baa qola qola u dirirkii qarba qurbaha degayo qaramada midoobay قود ورصدو قحوتي نقضي قولو قولو وديركي قربا قربا دقيو قرم ذا مذوي قود ورصدو قحوتي نقضي وحي قحريو دباتو دكيني قربي دكيني كلا قبي alloo naga qabo adaa qadire 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 waa tahay alloo naga qabo adaa qaadir ahee amiin ayaanu leenahay waa codkii markaasi halaasiga ahaa ee fanaanka cabdirashiid muxuudiin kaalmooy cabdirashiid marka haddaan kuusoo laabto fanka dadku waxaa la yidhahdaa laba unbay kusoo galaan ama jacayl ama dagaal adiga fanka hamigaagii kugu horeeyey ee aad ku tiri ama istiri fanka gal ama waxyaabay kugu dhaliyay wallaahi aniga inuu codkayga inuu qurux yahay ama inuu fiican yahay ma ogeyn waxaan ku soo galay carabtu waxay dhahan sudfa yani anigu ogeyn fanka soo galay wiil saaxiibkayga ah fanaan ahaa jiray anigoo 15 jir 16 jir ahay marka isku ahayn asagana wuxuu ku jiray band ama firqa ama koox ku jira ha marka xaq agteeda ma jiri waa isla waxa maxaa la isku waran ahaa jirnay marka codkayga maalin maqlay anigoo wax akhrinayo oo heesaayo codkayga qurux yahay Cabdirashiidow anaga waxa naga daa warkaas ma jiro warkaas camal asiga waxa dhahay baroway marka maxaa la kooxdood aan soo ziyaartay codkayga maqleen waxay u dhahnaa codkayga waa cajiib ma fanaan noqotid marka bilaaga saasoo ahay way markii aad intaas dhiirigelinta lagu siiyay oo codkaagii la soo dhaweeyay goorma kugu horeyso astri adiga fanaan baa tahay ama hees aad sameysay oo dad la hortimid والله هستي igu horeysay maxaa la waxay ahayd 2007 iyo 8 sidaas waqtigaas oo kala ma 2007 waxaan ka qayb galay maxaa la barnaamij waxa la munshid ash-shaariqa barnaamijkaas waxa lagu qabtay wadanka Imaaraadka anigana magaca Soomaaliyan matalaha marka barnaamijku waxa ahaa anashiid marka magaca Soomaaliyan aan matalay
kadib waxaan daray mas'uuliyad weyn inay saaran tahay magaca Soomaaliya oo dhan ina aniga oo fanka islaamiga ina ku matalo mas'uuliyad weyn ay ahayd kadib waqtigaas waxaan go'aansaday inaan fanka si fiican u soo galo وجي أو محل لها أما جيت أي دت سومرين أنا سومرة أو مختلف أو أن فنك إنه كلية أهانين هيس أو هذا لما خلق أو هذا برين لا إله وحن قاصد إن هيس هي نقدان هيس أو ما أنت لما خلق فإذا نلاقيها له. واجد. ويا أنت بدن هيسها تسميسوا أما مركها إنه أرجنو مقالة أتصاب إنك تلا بقى بيدو سميسا قاركود وهيس شو دمسرن وموسيقى إن عوال بكرة دمسرن قاركود محد أسميسا عود كاجا أو جونية هي أنا كاس محد وجودن ليه waxaan ugu dan leeyahay maxaa laha dadka way kala duwan yihiin dadka ku qanacsan inay music xaraan tahay aniga arintaas kuma qanacsan yani laakiin waan ixtiraama dadka ku qanacsan dadkaas waxay leeyihiin daliil leeyihiin inay music inay xaraan ama tahay ama inay wax fiican ahayn inay wanaagsan anigana waxaan ku qanacsanahay music inay wax amal tahay microphone-kan hadda aan qaato haddaan waxaan ku dhaho ama wax fiican haddaan ku dhaho aniga igu xiran tahay music-gan waa sidaas oo kale marka music waxaan u isticmaali karaa si fiican oo isticmaali karaa waxna u isticmaali karaa si qaldan marka aniga music waxaan u isticmaalaa si fiican marka arrinkan in codkaaga kaliya aad soo bandhigtaan waxaad ugu dan leedahay in dadka qaar ay jecel in muusikada laga reebo aad ku qanciso inaan ku qanciyo in fanka aan aniga wado in la taageero mid koowaad mid labaadna in fanka aan wado inuu yahay yani music la aan inuu soconayo inay muhiimadda yani heesta waxay ka kooban tahay saddex qayb kelimada iyo laxanka iyo musiga fanaaniina jiraan aan xoog waxay saaran kaliya music asagoo cod lahayn laxan fiican ma jiro kelmadan ama miraha heesta ay daciif tahay taas oo ka soo horjeeda waxaan aaminsanahay heesta inay tahay miro wanaagsan laxan wanaagsan cod wanaagsan music wanaagsan waayahay hadda haddii aan ku dhaho codkaagan kaliya igu yara qaad mid ka mid ah heesihii Soomaaliyeed ee dhanka wadaniga miyaa wadi karaysaa akiid waayahay waxaan rabaa marka inaad codkaaga ku qaado heesta calanka Soomaaliya oo runtii heesaha aynu jecelnahay maadaama dadka Soomaaliyeed inta badan marka laga hadlayo daljacaylka iyo heesaha suugaanada wadaniyada ay ku badan tahay heestaas waxaan rabaa bal codkaaga kaliya maadaama codkaaga aad u macaan badan Soomaaliya tooso isku tiirsada hadba kiina taagdarane taageera weligiine calan yahow tilmaan wacanba midibkaagu taabku yaho xidigtii na tirinaysa dhaxda kaaga sii taale Soomaaliyay tooso isku tiirsada hadba kiina taagdarane taageera weligiine waayahay aad baad u maasantahay jamiili carabta dhaan walaal markaas oo kale aad baad u maasantahay waaya muqdisho joogta hadda qorshaha kugu horeeyay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo maalmahan ciida oo aad ku sugan tahay iyo dadka Soomaaliyeed oo runtii aad ku sugay inaad timaado halkani maxaad fariinahay oo aad leedahay dhanka fankaahi oo aad kaga biirinaysaa ha ku soo dhawaadaan showga aan qaban doono maalinta labaad ee ciida waxaan filaa insha Allah inay dad badan imaadaan insha Allah waa soo sheegi doonaa insha Allah meesha lagu qabanayo iyo wixii laazim ah way aad baad u maasantahay dhanka kale marka suugaantaadu aad u far badan oo hadana midba midka kale ka sii macaan badan tahay dhanka inashidooyinka aad lagu yaqaan heesaha anashida la yiraahdo ayaan rabaa inaan markaan wax ka eegno heeso waxa jiray oo Soomaaliya kaga hadlayso iyo kuwa kale wadaniyada oo waxa jiro af Carabi oo aad ku qaadayso
هيست صومالي وافتخر اما انا صومالي ضد بدن محل لها مقعيق اني كبوديني wax igu yaqaaniin wiilkii Soomaali waa aftakhir marka aniga ah Cabdirashiid Muxiidiin magacayga Cabdirashiid Muxiidiin dad badan baa laga yaabaa inay YouTube ka yaqaaneen halkan maanta isla ninkii heesta aan garanayni qaadi jiray baan daawanayna nasiib bay maanta u yeesheen arrinkaasna marka hadda waxaan qaadi doonaa heesta Soomaali waa aftakhir heestaas midii markii ugu horeysay aan soo sameynay waxay ahayd 2011 يعني لحسنا لك كسو وريقتي markii kood aan duubay laptop yaran ku duubay studio xita mala aadin mid internetka ku jirta xita ee dadka ay maqleen mid aan laptop ku duubay mid aan studio la aadin ma ahan kadib waa soo cusbanaysay marka la soo duubay music high quality ahan saaray haddana ugu horeeyay ay jumhuurka maqli doonaan insha Allah markaan ku soo dhawaada heestaasi aadka u macaanka badan ku saabsan wadankeena Soomaaliya waa aftakhir waxaana markaasi ku luqeynaya fanaanka aad arkaysaan Cabdirashiid Kaalmooy oo Muqdisho maalmaha la jooga ciidana nagala qayb galaya farxadda munaasabadda maalmaha ciida daawasho wanaagsan وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر صومالي 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 وأفتخر أنا 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 لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي أعداؤنا لن يفلحوا بلادنا ستنتصر أبناؤنا هم الحماة أعداؤنا لن يفلحوا بلادنا ستنتصر أبناؤنا هم الحماة صومالي وأفتخر أعداؤنا لن يفلحوا بلادنا ستنتصر أبناؤنا هم الحماة صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر أنا
وحبنا سيستمر فأرضنا هي الأمان وأرضنا نحبها وحبنا سيستمر فأرضنا هي الأمان وأرضنا نحبها وحبنا سيستمر فأرضنا هي الأمان صومالي وأفتخر صومالي إلهي احفظ لنا بلادنا 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 يا مقتدر يا إلهي احفظ لنا بلادنا يا مقتدر فإنني صومالي صومالي وأفتخر صومالي صومالي وأفتخر أنا صومالي صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر. heestaasi aan filayaa in markaasi ay ka turjumayso inuu cadeynayo inuu Soomaali yahay isla markaana uu jecel yahay Soomaaliya una duceynayo dhowr qayb ay ku saabsan heestaasi ana Soomaali wa aftaqar. heestan maxay ku timid waa sax igaga shakay heestan maalin anigoo shaqo ma ka soo laabanay ma aqaani basan fuuli baska waxa soo fuuli wiil Soomaali ah Soomaalida xoogaa iska cad anigoo kale ma ahan xoogaa soo nuura marka wiilka waan aqaana waana huwa inuu Soomaali yahay isku walan ahayn marka meesha soo fuulay asaga miyay arkin hore oo fadhiistay wiilal Yemeni soo fuuleen waxay arkeen wiil oo mudaween oo xoogaa soo nuura laakiin oo shakiya ka qabtay wiilkan Soomaali miya mise Arab waaye mise almuhim waa weydiiyeen maxaa lahaa min fayn al akh yani حاجة ولا تعمل أصيغ إنه سوي جستي يمن وحكت مالا جرت محلها مجال أو تعز لده أصيغ محلها اللغة دي عربي وجاجو مركب حوالي أنا من تعز ما قاعد تصص مو شيء ها ضدك الهجيز مركان مقلين أصيغ شيء أنا إنه تعز يهاي وأسكت من إنه يمني هين ها مركب بس كيو من قصة لقب صدين بس قفكي كدغ أما قفكي صافولا أسيغو قصلاي صافولا أسيغو قصلاي كسيدغا marka aniga meesha joog meesha asku xishooday waxaan darqamay yani mushkilada maxay tahay hadii dhahayd yani Soomaaliyan ahay Soomaaliyada oo ku faana mushkilada maxay tahay yani marka xanuunka meesha soo qaaday ama dareenkaas xaq soo qaaday waxay uu kaliftay inay hees aniga qoro aniga abwaan miihi من أقول هيسان مركز هيستان أنا جا قري لحن أنا جا صاري دوبست يجو هريسين محلها لابتوبهم كدوبي وحقيقة هيس محلها هيستان إنا سمي واجر تالي إنا سمي واي فنكو مركز قردرين كا فنك لو كان أدو روح بدن مركز هيستان وحي كمتها يعني وحيابها أمارين والبيتابت يعني رشا سامين كله waya heestaasi kadib runtii waxay noqotay heesaha inta badan Soomaalida ay aad u dhageysanayeen xitaa muuqaalo badan loo isticmaalo intii ay sheeg aan arkay waxyaabo badan oo telefishinada Soomaaliyeed ka baxay email kale to waxtan waa arkay sorry YouTube waxa ka arkay heesta dad qaadanayo wiila mar heesta inoo qaatay codkayga wadaare telefoonkoona furay asaga qaaday marka taas caawinaas ka jirta ha inoo asaga qaaday waya marka erayada kale ku jiray macnaheedu aad bay u qurux badnaayeen marka aad leedahay Hargeysa iyo Kismaayo iyo ii sheeg muqdisho kaga sheekeynayso Soomaalida waxaan laga yaabaa qaarkood inay afcarabi si wax aqoonin xeer sharaxaad iga sii bal erayada kalimaadka waxay dhahay waa muqdisho hiya al-qamar muqdisho waa damuun oo kale dayax ha waa dayax oo kale Hargeysa hiya al-aghar Hargeysa waa geesi Kismaayo waxbaha Kismaayo waa jeclahay waa sax marka waxaan isku day ina carabta ina luqadooda aan ugu jawaab aan dhahan Soomaali waan ku faana Soomaalinimada ceeb ma aan Soomaalida qaarkood wax Soomaalinimada wax akan ceeb marka carabta ina ku dhaho Soomaalinimada ceeb ma aan waan ku faana ina Soomaali ahay magaalada Soomaaliya Muqdisho iyo Hargeysa iyo Kismaayo inay jiraan inay way Cabdishiin Xudiin dhanka kale to fanaan walba oo Soomaaliyeed runtii waxa jira waxyaabo markaasi
support ama waxyaabo uu taageero oo dhanka fanka ah ama fanaaniintii hore noqdaan ama dad uu qofka markaa fanka kaga daydo adiga fanka Soomaalida ma dhageystaa fanka Soomaaliga waa dhageystaa gaar ahaan fanaaniintii hore ha waabari فنانتي وابري فنانينتا فاطمة قاسم لول جيلاني مثلا لول جيلاني وهبريرتي هي ما شاء الله ان مقال دل فنيدا بتايبو ها علي مقليف مقالنا waa dhageystaa isii علي مقليف مقال الله naxariisto badan bay qaaday waxaad ka xasuusin jirtaa isii heesayda waxaan xasuustaa waxaan hadda ka horta aan ka qaaday maanta waa maalin weyne maanta madaxeen banaane maanta waayo Cabdirashiid Allah naxariisto magaal iyo fankii hore runtii aad igaga sheekeysay heesta maantana hore aad u qaaday dabcan iyadoo music leed suugaantaadu anaga runtii aad bay inoogu badan yihiin oo dadku ugu badan yihiin oo aadna loo jecel yahay barnaamijka hadii la yiraahdo maanta socdaal iyo Cabdirashiid way sheekeysanayaan waqtiga uu sii dheeraanaya dadku suugaantaada sugayaan hadda waxaa noo soo qabataa heesahaga mid kale mise markaan dhankeena waay waxaan soo qabanayaa heesahayga mid ka mid ah oo af Soomaali ah nashiid ama hees magaceeda oo yahay salaadu waa nuur ma sha Allah salaadu in nuur tahay waxa way dahay nagama saarna ku soo dhawaada daawadayaal codka Cabdirashiid iyo heestaasi la yiraahdo salaadu waa nuur ninkii waqtigeeda ooga ninkii guta waajibkeeda ninkii weynaha xasuusta wanag baa uu sugnaaday صلاة وعبادة وين الله أكتيسي صلاة وعبادة وين الله أكتيسي سيدي وحييجي يا قرآنك لقواري نبيجي سيدي وحييجي يا قرآنك لقواري نبيجي الدنيا دوا أيامه ميد ولقا كواري الدنيا دوا أيامه ميد ولقا كواري أظلم يور موقع أرموت كوكو هلا أظلم يور موقع أرموت كوكو هلا صلاة ونور صلاة ونور واتهاي صلاة ونور طبعا halkii loo baahnaa ayaa dhigtaystani waana waajib in qof walba oo Soomaaliyeed la xasuusiyo tirarka markaasi islaamku ku dhisan yahay ka soo laabano Cabdirashiid rajada fanka aad ka qabtad ilaa intee gaaraysaa wallahi waxaan aad u jeclahay in fanka Soomaali gudaheeda in miraha iyo kelmada in qiimada la sii weynayo fanaaniin badan
kelmadda ama miraha qiimo badan mu yeelan musiga qiimo u yeelan heesta music kaliya ma ahan music waa music qofkii music dhegeysanaya waa music kaliya laakiin haddii hees la dhaho heesta waxay ka kooban tahay sida waa ereyadii laxankii iyo codkii iyo musicii haddoo khalal ku jiro ama maxaa la dhahaa yani wanaagsaneyn ha heesta kaamil ma ahan ama heesta ma dhamaystirna waayo hadda fanaaniin badan oo Soomaaliyeed baa jira oo inta badan dalka dibadiisa ku badan heeso badan bay sameeyaan muuqaalo badan bay sameeyaan adiga laakiin inta badan muuqaalada heesaha official videoga dhankaaga lama hayo arrimahaasi maxaa la leeyahay wallahi run ahaantii su'aashaas waa su'aal khatar aniga waxaan ka mid ahay dadka oo maxaa la dhahaa shuruudahooda badan marka aan hees sameynayo marka qofka music ila sameeya waa igu dhibtooda qofka laxanka axyaanan ii sameynaya haddii aniga sameynayo ama qof ii sameynaya asana waa igu dhibtooda waxaan jeclahay in hees marka la sameynayo inay 100% inay noqoto marka hees fadhisa marka shaqadeyna waa iska badan tahay marka waqti badan waa ka mashquulay inaa muuqaal sameeyo waqti kalena shuruudaheeda badnaayeen laakiin insha allah sanadkan video ugu horeeyay arki doontaan waxaan soo diyaariyey heestii Soomaaliya qarannimo diyaar waaye waxa u dhiman editing yar heesta hadda maqlaysan qaarkood inta hadda lagu duubay heesta Soomaaliya waa aftakhir waan cusbunaysi midii hadda aad maqasheen ayadan waxaa ka dhigaynaa insha allah video clip high quality berihana sawir doona insha allah usbuuca dambe marka waa ay arki doontaan insha allah yani telefishinada way dhanka kale to inta badan heesahagan aad qaado aadka u quruxda badan muusikada dhamaantood waxaad moodaa inay tahay muusik carabeed ama carabta ahi maxaa ku dooratay wallahi aniga waxaan aaminsanahay musiga inay tahay luqad marka music maxaa la dhahaa aniga wadan carabeed jooga oo Yemen Yemen بصراحة يعني runta hadaan idin sheego ma joogaan Soomaali oo music sameeyaan oo high quality music u sameeyaan Soomaalida banaanka joogaan xiriir fiican ma leeyihiin marka hadii xiriir fiican aan lahaay marka mowduuc isbedeli lahaay marka dadka igu dhow waa carab كلنا Soomaaliya qarannimo hadii dhageysatay musigeed waxaan u maleynayaa music Soomaali waay waa sax waa gartay kalam waxay u badan yihiin music carabeed dhanka social media oo runtii barta kaliya dadka Soomaaliyeed ku wada kulmaan saameynta markaad fiiriso heesahagan iyo shacabka Soomaaliyeed bal ka waran qaab sidee la eg bay ku soo gaaraan ama fariimo qaabkay ku soo gaaraan oo wax ka bedel hadii lagu dhaho waa saxan tahay oo sidaan heesaha ku sii wad iyo talooyinka ay ka qaadato dadka maxaa la jumhuurkayga badana waa jumhuur Facebook ama jumhuur YouTube marka heesta markaan soo saarayo ay comment oo heesta laga soo sheego waan aqriyaa ay comment yani wax walba aan Facebook soo dhigo comment oo leeyahay comment aan saas si moodo ama aqrinin ma jiro ay comment waan aqriyaa ay risaale maxaa la ama message soo gaarana waan aqriyaa anaan shakhsiyan u jawaabo group la shaqeeyo waa jiraan laakiin message-yada iyo commentada aniga si gaar ah u aqriyo maxaa inta badan markay ku yiraahdaan dadka Soomaaliyeed بصراحة يعني ديرجلين دعمي بدن واهلي يعني و بدن هذاك حيقول هاني يعني أرن وناكسن وإن فنك إنه نقضه فن أو معنى له إن هاي كواليتي كوش قيست دعمي بدن بصراحة واهلي ضد ير واجران أو يقول يعني أنا عرب مني هي لغة عربية أنا قداف لكن و يعني قف لا وقف صدق يعني من جارين waxay sheegtay in xiriir badan uu saydin ka dhaxeelin fanaaniinta Soomaaliyeed dalay dibad kala jooga hadda caasimadda Soomaaliya joogta fanaanin badan baa joogo wadada arabto ama halka aad rabtaan ka ambaqaado iyo qaabka xiriirka aad rabtaan u bilowdo ma ku qorshaysan والله waxay qorshaysan in abwaana badan in musican badan inaan isbarano dhowr fanaaniin waa isnaqaana yani مثلا hawlada waa beri واسنا قانا كويدا كوكولني مركز شخصيا وأقانا يعني
fanaaniinta Soomaali kalena Soomaalida ah oo Soomaaliya joogan waxaan jeclahay inaan sameyn xitaa dueto yani inaa heesla isla qaadno inaa wax isla qabana yani ولينا مجلس أنفليا قبر هايس كل قادة أما تيم كله تيم واجرة تيم صومالي أو يمن جوجو رابطة المنشدين الصوماليين يعني أورك منشدين الصوماليات صح يمني جوجان وأسلقت دور هيسوت لكن مجرى هذا إلى هذا يعني قف أنا أسلقتني هي الصومالية أكبر رجينا إن شاء الله وحقاق عيد وناكسن أيان مركز هيدا اللي نحي وسعودال يا عبد الرشيد وهالكانات كداونيسان برنامج قار هاي ويان ونقول ترى مناسبة مع المها عيدة فأنا كان عبد الرشيد الكديب دي سايو نجي بيت عاصمة الصومال أيو تشوجاه إسلام كان هالكان أيو كوسب نجيا سمركاسي شعب كيسا وحيابها وهايو أي وجبكتان وحيابها وصوب نجي وسوينتي سا عبد الرشيد قبل أيان تاجرنا هاي إسلام برنامج كان قار كاهي مركز وان كاهي علينا وقتي أنا سيسي hal iyo labo adoo fursadan ka faa'iideysanaya intaan u tagin heesta aad noo soo xirayso ama noogu soo gabagabeynayso mid koowaad maalinta labaad oo ciid ah aan is aragno munaasabada aan qabanin ama showgaas waxaan jeclahay inay Soomaaliya oo dhan imaado marka qofkii fursad haya maalintaas ha isku day inuu yimaado waxaan mahadgar u celinaa munadamad jiil alwatan dadkii ugu soo marti qaadeen showgan dadka Soomaaliya ay keeneen mahadgar ayaa u celinaa khaasatan Dr. Xasan Cabdiraxmaan iyo Xuseen Diiriye midda saddexaad waxay igala socotaan Facebook ama YouTube ama Twitter magacayga Cabdirashiid Muxiidiin af Soomaali ama af Carabi ama af English dib ku qortiin waa helaysiin safxadahayga midii afaraad waxaan jeclahay fanaaniinta Soomaaliyeed ina xiriir fiican la yeeshto marka fariintan hadii idin soo gaarto waa isla xiriiri karnaa insha Allah xiriir fiican in la yeeshan jeclahay insha Allah hal ila wiya qoyskaaga asxaabtaada halkan ka salaamaysa qoyskayga salaama bihi hooyaday xaaskayga insha Allah dhamaan ehelka insha Allah way aad baad u maasanta Cabdi Rashiid aad baan kaaga mahadcelin waqtiga qaaliga ay fursada qaaliga aad nasiisay gabadhii anagoo markaasi xiritaankii taaganahay heesta aad noogu soo xirayso oo aad noo soo qabanayso heesa jirta dhowr bilood ka hor aan sameeyay ciid assalaam Allah waxay ka hadlaysaa ciida iyo nabadda yemen dhibaatada haysto aan socodtiina umalayna waxaan uga talagalay bisaraxa yani markaan dhibaatada yemen ka jirta markaan arkay maalin ciid la soo gaaray inaan ka hadlo nabadda iyo ciida guud ahaan daawada inta ayaan ku soo gabagabeynayaa heestaasi nabadda iyo ciida ka hadlaysa ayaana barnaamijka ku soo xireenaa tan iyo mar kale intaan barnaamijka mid lamid ahay aan isugu imaanayno waxaa ويان أنا عبد الناصر السعودال وإذا كجت جا سدا إيه ذلك ونبضه وحنا أمهد علينا أصحاب البرنامج كان قعنتها وين كجستي إيه ولا فرانك قال هي عبد الرشيد محيدي كالموي أو برنامج كجل قب قال سدا إيه ذلك ونبضه الله ما أحلى السلام الله في العيد والدنيا سلام الله ما أحلى الوئام والناس تفرح يا سلام هيا نلملم شتاتنا نبني الديار بسلمنا لا للحروب فعيدنا عيد المحبة والسلام